in dawladda Kenya imika ogolaatay in la bilaabo duulimaadkii tooska ahaa ee u dhaxeeya Hargeysa iyo Nairobi. waxaana ka mid ahay waxyaabaha aan kala hadalay madaxweynaha waxyaabo badan oo surprising ah way soo socdaan ee Soomaalidu iyo hadhow yaabe waxaan jaaliyadda ku bogaadinayaa inay jaaliyad isku duuban tahay inay sharaf weyn noo soo hoyseen inaynu wada shaqayno aan idinla shaqayno oo idaan waddankiina ilaawin oo qofkii maal gashanaya ku soo noqon karo oo qofkii wuxuu sidoo doono ugu soo noqon karo saacadu doono waxaan idinku bishaaraynayaa jaaliyadda in dawladda Kenya imika ogolaatay in la bilaabo duulimaadkii tooska ahaa ee u dhaxeeya Hargeysa iyo Nairobi. waxaana ka mid ahay waxyaabaha aan kala hadalay madaxweynaha waxyaabo badan oo surprising ah way soo socdaan ee Soomaalidu iyo hadhow yaabe Somaliland Soomaali ma nacba lixdankii waxa uu geeyay Soomaali jacayl laakiin dee way iskaga soo noqotay Soomaaliya waxaan u sheegayaa oo dadka ku mashquulsan arrimaha Somaliland waqtigii ka lumay hawlihiina qabsada Somaliland idinkeedu kuma mashquulsana waxay ku mashquulsan tahay hawlaheedana way wadanaysaa hawlaheedana ma joojin kartaan kuwiina ka adkaada nabadiina ka adkaada midnimadiina ka adkaada maamul goboleedyadiina ka adkaada weliba waan idinku ducaynaynaa waxaynu doonaynaa inaynu noqono ummad si dhinac taalla oo nabad ku wada noolaata oo jaara haddii ilaahay ka dhigo waxaan kaga tegayaa inaan dhowr erey ku idhaahdo maadaama ay nala fadhiyaan dad aan af Soomaaliya ku hadlin erey mahadnaqa inaan ku idhaahdo It's a great honor for me and my delegation that members of the Kenyan Parliament and Senate and Professor Lumumba, who is a great son of Africa, waxaan idinku bishaaraynayaa jaaliyadda in dawladda Kenya imika ogolaatay in la bilaabo duulimaadkii tooska ahaa ee u dhaxeeya Hargeysa iyo Nairobi. waxaana ka mid ahay waxyaabaha aan kala hadalay madaxweynaha waxyaabo badan oo surprising ah way soo socdaan ee Soomaalidu iyo hadhow yaabe